waxay kamid ahayd gabdhaha ugu hodansan uguna qaninsan wadanka Hindiya isaguna waxa uu ahaa wiil faqiir ah waxa uuna ku dhacay jacaylkeeda waxay aqbashay inay guursato isagoo ku sugan xaalad aad u adag oo faqri iyo dhibaato ah maxaa uu ugu abaalguday markii uu kamid noqday kuwa ugu qaninsan uguna caansan atoorayaasha iyo xidigaha caalamka kulankoodii ugu horeeyay waxa uu ahaa mid la yaab leh waxay ku kulmeen calaamadaha gawaarida istaajiso kala hagta Roshan Hiritig waxa uu eegay dhinaciisa bidix waxa uuna ku arkay gabar aad u qurux badan oo gaari ka xaynaysa Roshan isagoo ka faa'iideysanaya inta ay ka imaanayso fariinta socda ah ay bixin doonto calaamadu ayaa uu gabadhii la sheekaystay waxa uu ku dhacay jacaylkeeda waxa uuna rajeeyay in xiriirkaas wadada ee jaamka ahay ay muddo badan sii xirnaato si uu chance fara badan ugu helo nasiib darro inta uusan xitaa baran magaceeda dhabta ah ayaa waxa ay bilaabeen gawaaridii inay hareerahooda taagnaa inay socdaan Roshan Hiritig waxa uu dareemay shalay maadaama xitaa uusan lambarkeeda ka qoran maalmo kadib waxa uu ku arkay gabadhii xaflad dhalasho oo ay gabadh walaashiis ahayd ay sameysanaysay aad buu la cajabay oo u qaadan waayay waxa ka disay la yaab ku noqotay gabadhii uu maalin dhaweyd ku arkay jidka inuu ku dhex arkayo hadda xafladda dhexdeeda markii ay bilowday qoobka ciyaarka ayuu indhihiisa ka leexin waayay oo ka libiqsan waayay waxa uu ugu dheegay si aan caadi ahayn mid saaxiibkiisa oo garab joogay ayuu ku yiri gabadhaas waxay noqon doontaa xaaskayga maalin kamid ah maalmaha saaxiibkiis aad ayuu ugu qoslay kadibna waxa uu ku yiri arrinkaas suurtagal ma ahan gabadhaas waxay ka dhalatay qoys aad taajiriin ah waxaana dhalay jilaacaan ah oo macruuf oo la wada garanayo Roshan waxa uu ahaa wiil yar oo dhalinyaro ah oo aan lacag ku filan haysan oo xitaa naftiisa aan si fiican u dabari karin oo jilniinkana ku cusub sidaas ay tahay Roshan waxa uu go'aansaday inuusan isdhiibin oo uusan jacaylkiisani si fudud uga tagin waxa uu bilaabay inuu Susan u diro maalin walba heeso jacayl ah oo uu maalin walba u qoreeyo u diray ay sabab u tahay heesihii uu maalin walba u qoreeyo u diri jiray ayaa waxay dhinaciisa ka dareentay inay ka soo helayso ay la soo cajabaysaba waxay ka ogolaatay inay ballan u baxaan oo soo sheekaystaan intii ay ku guda jireen fadhigii kulankoodaas meel restaurant oo meherada ay wax ka cunayeen ayaa waxa uu ka naxay markuu arkay inuusan lacag baabahaysan oo ku bixiyo cuntadii iyo cabitaanka ay dalbadeen waxa ay Susan ogaatay inuu yahay wiil faqiir ah sadarteed iyada ayaa lacagtii bixisay waxa uuna dareemay Hiritig yani ceebaysi iyo damiirkiisa iyo xusir gabadha mar dambaba xitaa kula soo hadli mayso maadaama waxa tahay ogaatay in faqiir tahay maalmo kadibna iyada baa la soo hadashayba markaas ayuu Hiritig Roshan waxa uu ogaaday inay gabadhani si dhab ah u jeceshahay ayna khasab tahay inuu xoog u qabsado oo uu jacaylkeeda ku dhaganaado wuxuu yiri qof kasta wuxuu yiraahdaa ma jiro qof dhameystiran laakiin balkaalay hal mar ila arag Susan waqtigaas waxa uu doonayay Hiritig Roshan inuu si xoogan u soo galo faniga jilniinka oo wacdara ka dhigo waxa uu sanadii 2000 matalay filimkiisii ugu horeeyay ee Kahona Biyarhe markaas ayay laba qaraxday caanimadiisii filimkiina aad looga helay waxa uu kamid noqday atoorayaasha iyo jilayaasha ugu caansan Hindiya isla waqtigaas waxa uu gaaray heer ay isku soo bandhigeen 20 hablood oo naftooda u soo bandhigay isaga si uu u guursado balse Roshan waa uu diiday dhammaantood waxa uu go'aansaday inuu guursado jacaylkii noloshiisa ee Susan kaligeed ayuu doortay maadaama ay dhinaciisa taagnayd oo garabkiisa ahayd waqtigii uu faqiirka ahaa caankana uusan ahayn waligay ma caashiqin qof la mid ah Susan waxaana rajaynayaa noloshayda dhammaanteed inaan la dhamaysto iyada waxay wada noolaayeen labadoodu muddo gaaraysa 13 sanadood oo dhameystiran waxayna isu dhaleen 2 ilmood balse nasiib darro sanadii 2013 ayay waxay si kids ah u cadeeyeen in ay kala tagayaan oo isfuri doonaan saasoo tahay mid iyaga kamid ah saxaafadda iyo warbaahinta uma uusan sheegin sababta ka dambaysa furitaankooda waxa la sheegaa sababta furniinka keentay inay tahay inay ka masayrtay ay dhibsatay gabdhaha quruxda badan ee tirishooyinka ah ee filmaanta la dhigaya Hiritig Roshan intii ay isqabeen wax muran iyo dood ah ma soo dhexgelin xiriirkooda oo jawi degan oo nabadgelyo ayay ku qaatay furniinka kadibna sidoo kale oo xitaa kuma aysan murumin cidda caruurta xanaanaynaysa oo nafaqeynaysa oo ka warqabaysa xiriirkooda furniinka kadib waxa uu gaaray heer uu kula taliyay in ay raadsato nin ay guursato si ay farxad ay u hesho ay farxad ugu noolaato anigu raali kama ahi inay Susan ku noolaato karinimo iyo murugo waxa waajib ku ah inay raadiso nin aniga iga wanaagsan sidaas ayay waxay ku noqdeen saaxiibo aad isugu dhow markii uu dhamaaday jacaylkoodii weynaa markii xiriirku dhamaado waajib ma aha inaynu isku noqono cadow xiriirku waa akhlaaq xitaa haddii uu dhamaado si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe like follow iyo share waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif
oo idin leh nabadgelyo. Salaamo markasta.